xayawaanka diinku waxa uu ka mid yahay xayawaanaadka duurjoogta dalkeenan hooyo uu hodanka ku yahay muddooyinkii ugu dambeeyayna waxa soo baxay ugaarsiyo kala duwan oo sharci darro ah kuwaasoo ku aadan xayawaanka diinka ciidamada booliiska gobolka Togdheer ayaa waxay soo bandhigeen laba diin oo lagu soo tuuray bartamaha magaalada Burco taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer ayaa ka hadlay dhacdadaasi waxaana uu taliyuhu fariin culus u diray cid kasta oo ku hawlan dibindaabyada lagu hayo xayawaankan duurjoogta ah ee diinka isagoona sidoo kale tilmaamay in ciidamada booliiska ay talaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan cid kasta oo lagu qabto muurta caynkaas oo kale tahay halkan waxaan maanta aanu joogno aanu mataqaanaa aanu maanta suuqa Burco dhexdeeda ka soo helay labada diin oo ah kuwii ay ugaarsanayeen dadkan mataqaanaa sida khaldan wax loogu sheegay ee fariinta beenta aad umada gaarsiiyay ee xayawaankii diinka ku dabar jaraya anigu halkan fariintan ka diray waxa weeye cid aliyaala cidii aanu ku qabanno cid aliyaala cidii hawsha aanu ku qabanno ama diinka wadata sharci baanu haynaa duurjoogta cidii ku xadgudubta sharciga duurjoogta waxa weeye anagu qodob xeerka ciqaabta baanu haynaa qodob la yiraahdo 494 ama 494 Cruelty of Animals baa la yiraahdaa dadka ula dhaqma xayawaanka mataqaanaa sida axmaqnimada ah qodobkaas aanu haynaa sharcigan aanu ku horgeyn doonaa waxaan uga tegayaa dadka hawlaha ku jira ee haddii aanu qabanno nin diin sita oo si sharci darro u sita in aanu maxkamadda geyn doono sharcigan horgeyn doono guud ahaan gobolka Togdheer waxaan uga digayaa dadka ku hawlan hawshaasi inay iska baxaan geestiisana waxa halkaas ka hadlay Mahad Faarax oo dhaqdhaqaaqa xuquuqda xayawaanaadka duurjoogta waxaana warintani ku tilmaamay mid sharci darro ah anigoo ah Mahad Faarax gaadhaya duurjoogta halkan saaka waxaan ku soo qabanay aanu keenay laba xabood diinkaasi wuxuu ahaa diinkii muddooyinkii u dambeeyay la guranayay waxa weeye niman ugaarsataa baa Ilaahay nagu salido carbeed nimankaasi waxa weeye diinka way ugaarsanayaan oo harimcadka way ugaarsanayaan oo gorayada way ugaarsanayaan oo shimirta leela galeerka way ugaarsanayaan oo jugleda way ugaarsanayaan waxaana imika jira xayawaan badan oo deegaamadeena ka si dabar go'aya oo u horeeyo harimcadku marka arintaa waanu cambaaraynaynaa waxaanu leenahay cadowgeena koobaad awal hore wax la oran jiray dad baynu saynaa war waxaan idin sheegay cadowgeena koobaad waa ninka diinka ugaarsanaya waxaan halkan uga mahad celinaya xukuumadda Soomaaliland in wasaaradda deegaanka iyo madaxweynaha Soomaaliland oo talaabo cad ka soo saaray ugaarsiga duurjoogta arintaasna waxaan leenahay waa go'aan taariikhi ah waxaan leenahay halka ka sii wada Khalid Bakeyle Fogaana Raga Xorta Star TV Burco.